Dardaaran hooyo iyo aabe. Hortii aan gabowgo waxaan rajaynayaa inaad i fahanto dulqaadna ii yeelato lacalla haddaan saxmada jebiyo ama miiska maraq ku daadiyo sababtoo ah aragaygii baa sii yaraanaya. Waxaan rajaynayaa inaadan igu qaylin. Dadka waaweyn waa xasaasi, mar kasta waa ka naxaa kolkii aad qayliso. Goortii maqalkayga daciifo oo aan ku maqli waayo waxaad sheegayso, waxaan kuu rajaynayaa inaadan igu yeelin dhagool. Fadlan ku celi waxaad tidhi ama ii qor. Waan ka xumahay ilmahaygii, waan gaboobayaa. Goortii jilbahaygu tabar dareeyaan waxaan filayaa inaad dulqaad u yeelato, inaad isaas farakiciso si aan ku caawin jiray goortii aad yarayd oo aad socodbaradka ahayd. Fadlan ii dulqaado goortii aan ku celceliyo hadalka sidii diibaan jabay. Waxaan rajaynayaa inaad i dhegaysato. Fadlan ha igu maadaysan oo hay dhibsan inaad i dhegaysato. Ma xasuusataa markii aad yarayd oo aad buufinka rabtay waad ku celcelin jirtay ilaa aad ka hesho wixii aad rabtay. Fadlan ka raali noqo urkayga. Dadka waaweyn waxay leeyihiin ur u gaar ah. Fadlan ha igu qasbin inaan hugaysto. Jirkaygu waa daciif. Dadka waaweyn si fudud bay u xanuunsadaan goortii qabow badan ay dareemaan. Ma xasuusataa goortii aad yarayd waan ku ergan jiray ma aadan rabin qubays. Waxaan rajaynayaa inaad dulqaad badan ii yeelato goortii dabeecaddaydu isbeddesho. Waa qayb ka mid ah waayeelnimada. Waxaad fahmi doontaa goortii aad gabowdo. Haddii aad wakhti firaaqo hesho waxaan jeclahay inaad wada hadalno xitaa daqiiqado yar. Had iyo jeer keligayga baan ahay, mana haysto qof aan la hadlo. Waxaan ogahay inaad shaqo mashquul ku tahay xitaa haddii aadan xiisaynayn sheekadayda. Fadlan wakhti yar xitaa ii hel. Ma xasuusataa goortii aad yarayd waxaan dhegaysan jiray sheekooyinkaaga carruurta ee aad jeclayd. Goortii wakhti ii yimaado aadna u xanuunsado oo aan sariirta ka soo kici waayo waxaan filayaa inaad dulqaad ii yeelato oo aad i daryeesho. Waan ka xumahay haddii aan si kadis ah sariirta u qooyo oo aan wax qaribo. Waxaan rajaynayaa inaad sabir u yeelato daryeelkayga saacadaha ugu dambeeya noloshayda. Ma sii waarayo. Goortii wakhtiga geerida ii timaado waxaan filayaa inaad dhinacayga joogto, gacantaydana qabato. Waxaan wajahayaa geeri. hana welwelin, qof kasta wakhtigiisa dhaafi maayo. Haddaad iga dambayso ha iga hilmaamin ducada. Haddii aabe iyo hooyo ama midkood uu ku nool yahay ka ducayso, u noqo baari, u naxariiso oo daryeel. Allah u naxariisto dheh haddii ay kaaga sii hormareen daarta dambe ee lagu waarayo.